sidee ayaad uga faa'iidi kartaa ama lacag uga samayn kartaa lacagaad maalgashatay cryptocurrency sanadka 2025? waxaynu ognahay dhammaanteen in sanadada u dambeysay waxa aad iyo aad trend u ah oo bulshadeena aad mataqaana u haysa ama yani uga wada sheekaysanayaan cryptocurrency wax maanta iyo shalay bilaabo ma ahayna wax sanado ka hor soo bilaabmay weeye. dad badanna ay ku jiraan Soomaalida, laakiin hadda ayada badan ay fahmeen. halkan waxaan ku kula wadaagi doonaa 4 tallaabo oo haddii aad bilow tahay ama aad doonayso inaad ka faa'iido lacagtaad maalgashatay cryptocurrency inaad samayso, halkan kula wadaagi doonaa. tallaabada koowaad waxa weeye cilmi baadhis iyo fahamka suuqa. tallaabada ugu muhiimsan ee maalgashiga cryptocurrency waa in aad samayso cilmi baadhis ku saabsan suuqa iyo weliba cryptocurrency-ga aad rabto inaad maalgashato. suuqa cryptocurrency waxa uu si degdeg ah isku beddelaa maalin walba iyo weliba daqiiqad walba iyo weliba second walba. waa inaad markaa fahamto isbedelada iyo macaamilada ka dhici kara suuqa. marka qodobkana koowaad waxa weeye intaan soo geli cryptocurrency waa inaad samayso cilmi baadhis iyo weliba fahamka suuqa. talooyinka dadkaas inta badan waxa ka mid ah marka hore inaad barato cryptocurrency-ga coinska noocyada la iibsado ama ay tahay inaad mar walba aad ka warhayso, sida Bitcoin, Ethereum iyo Solana iyo kuwii kale la halmaala. inaad akhrisato wararka iyo cilmi baadhisada khuseeya ama falanqeeya suuqa cryptocurrency ka hadla inta badan isbedelada dhacaya iyo fursadaha cusub iyo waxaas inaad maaragtaad ka warhayso. aad raadisid xog ku saabsan blockchain-nada sida iyo weliba DeFi oo la yaqaano decentralized finance. kuwaas ayaa ugu muhiimsan waxyaabaha ugu weyn ee suuqa saameyn kara. qofku inuu cilmi baadhis inuu sameeyo, inuu fahamka suuqa inuu wax ka haysto, inuu maaragtay fahansan yahay isbedelada ka dhacaya, inuu yaqaano qof akhrin kara wararka yacni soo kordhaya. mar walba cryptocurrency waxa saameeya wararka ka soo baxa Mareykan ama reer galbeedka ama dadka lacagaha waaweyn ku leh ee loo yaqaano whaleska loo yaqaano. dadkaas ayaana badan wararkoodu saameyn ku leeyahay. qodobka labaadna waxa weeye xulo cryptocurrencies ammaan ah oo aamin ah oo weliba leh suuq fursad sare leh oo yani wax laga faa'iidi karo. waxaa jira intaasoo boqolaal bilyan baa jira oo coins ayaa jira. marka ma ahan inaad waxaad aragtay baad tiraahdo waa coin aad iibsato. waa inaad indhaindhayso, waa inaad maaragtay aad akhrido, waa inaad xulato oo aad doorato oo maaragtay coinska aaminka weliba amniga ah ee fursad abuuri kara, fursad ku samayn kara, kuwaas oo leh mustaqbal ballaaran ama mustaqbal wanaagsan leh oo weliba sidoo kale leh taageere, yani inay wadaan programyo iyo weliba maaragtay mashruucyo ay doonayaan ku kordhiyaan ama kor ugu qaadaan awoodooda suuqgeynta. marka waxyaabahaasa ugu muhiimsan maaragtay inay idna fahanto coinska yani nooca ay yihiin, inaad doorato ood ka warhayso oo maaragtay diyaanad iska odhanun kan waa jaban yahay oo aanad iska iibsan, balse kuwa lagu kalsoon yahay waa inaad doorato. sidaan ugu wada ognahay Bitcoin iyo Ethereum iyo waa cryptocurrency-ga ugu amniga badan, uguna horeeya, uguna yani qaalisan, uguna waaweyn ee ku jira suuqa cryptocurrency. marka inaad taqaano kuwa wixii kale la halmaala inaad taqaano, sidoo oo kale inaad maaragtay aad taqaano wax kaloo kamid ah kuwaas kuwa la yaqaano layer 2 solutionska iyo Polygonka, Avalanche-ga kuwaasaa kamid ah. marka kuwan waxay saameyn karaan fursado waaweyn oo maaragtay mustaqbal wanaagsan leh oo lacag ku samayn kara ama lacagtaad geliso aad ka faa'iidi karto. sidoo kale waana taqaano kuwa la yaqaano stablecoins way coinka ku jaan go'an qiimaha dollarka ah. $1 hal USDT ama hal USDC waxaan ugu caansan kuwan USDT USDC baa ugu caansan. qodobka saddexaad waxa weeye inaad iibsato qiimaha kuwa qiimaha hooseeya. kuwa qiimaha hooseeya marka qiimuhu hooseeyo weeye qiimuhu markuu hooseeyo hadda yani Bitcoin waxay maraysaa wax ku dhow 90,000 ayaa maraysaa. ma dhaxaas wax soo taabatay 100,000 bay soo taabatay. yani xilligaas kale markay tahay ma aha inaad wax iibsato, ma waa xilliga dadku wax ka faa'iidayeen. laakiin marka ay hoos u dhacdo suuqa soo daato ayaa ah inaad wax iibsato. wax kale la sameeyo wax loo yaqaano dollar cost average ayaa la sameeyaa. yani waxa weeye marka qiimuhu hooseeyo ama mar walba inaad wax ka iibsato marka qiimuhu yara sareeyo, marka hooseeyo, marka dhexdhexaad yahay, marba inaad wax ka iibsato. taas ayaa la yaqaanaa dollar cost average. waa celiska dollarka
saas weeye qiimaha faliiska dollarka weeye dollar cost averaging. marka waa hababka ugu muhiimsan ee loo isticmaalo cryptocurrency marka la doonayo in wax la maalgashado oo la iska ilaaliyo khasaaraha. tusaale ahaan haddii aad $100 ku iibsato bitcoin, waxyaaba qaladiic ka mid ah dad ka iibsato isagoo maaragtay suuqu hooseeyo isagoo oo 90 mar haddaad wax ku iibsato $100, markuu 97 tago ama markuu 100 tago dee faa'iida kugu jirta. marka mar walba waxaa laga soo raacaa hoos baa laga soo raacaa si maaragtay markuu suuqu kor u kaco aad wax ka faa'iido. qodobka afraad ee u dambeeya waxa weeye isticmaal wallet ammaan ah oo la aamini karo. waladadan waxaa loo qaybiyaa laba: hot wallet iyo maaragtay cold wallet baa loo qaybiyaa. marka mar walba walletku waa mid mataqaanaa yacni mid waa mid maxaa loo yaqaan aad gacanta ku haysan karto oo yani waa midka ugu ammaan badan weeye. midna waa hot wallet oo mid online ku jira weeye. midna waa mid loo yaqaano cold wallet oo iyadu waa mid aad maaragtay ku isticmaali karto yani waa hard disk oo kale yani gacantaad ku haysataa wixii kugu jira. marka mar walba inaad ka warhayso inaad isticmaasho wallet ammaan ah oo la yaqaano oo yani baaritaan aad samayso weeye taas